السلام الله عليكم بان idin salaanay Ismaani Maxamed xogaa maalmahan samxad bay dib soo celiyeen dadkii iska social media dibku hungurigu ka galay aad la iyaga laftoodu dad ma hungurigu ma ka galay waxaan khaasatan aad waa taagayaa inankan magacayga ku isticmaalo Facebook-ga ee sawirada war fanaanada soo dhigay asmasadan oo la sheegay gabadhaasi waliba ka dhigay gabadheedan inaan kala tagnay waxaan leenahay caadis ka dhigadeero waxaan guriga kula fogaan aad ku salaamay salaam inta wanaag jacayl oo samaanta talanayso salaam marka caada la iska dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمة هي قدرين تيغا مدنو meel kastoo aad daafaha caalamka kaga nooshahay si kastoo aad ii daawanaysa waxaan wanaagsan haddii tay kulankaagii horreysay soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ta ii saarto siina share garayso like-tana aasaad marka aad nuxurka hadalka soo bogotana fadlan hilmaam inaad koobantay caafimaad qaba wixii fikirkaaga aad xagga hoose igula soo wadaagto ayayo wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiirso saacadii la soo dhaafay baraha bulshadu ku kulanto waxa si weyn u haystay lamaanaha Mubarak October iyo waliba Farxiya Fiska markii muuqaalo Mubarak October iyo waliba inan kale lagu soo baahiyay baraha bulshada kuwaas oo la leeyahay waa lamaanayaal haddaba Farxiya Fiska iyo waliba Mubarak October ayaa si wada jir uga hadlay waxyaabaha ku tuuri gudeenta aan saliira doona lahayn kuwaas oo la wareegay baraha bulshada iyaga oo waliba sheegay beejaj aan lahayn kuwaas oo mar walba la soo qaato waxyaabo aan munaasib ahayn lagu soo qoro kuwaas oo waliba aqliyan iyo waliba dhaqaniyanba ay diideen waxyaabaha ay ku soo qorayaan beejkaas kaasoo fiiga balse aan ahayn kooda xaqiiqada waxyaabaha qofku ku hadlayaan aan ahayn wax iyaga ka suurtooba haddaba waxa jira waxyaabo kale oo baraha bulshada la wareegay kuwaas oo xiriiray waliba jacayl kale ay dadka qaarkood ay soo bandhigayeen balse aan ahayn waxaan waxba ka jirin haddaba waxa uu sheegay inay guriga uun ka galeen balse aan ahayn dad xumaato kala wada dadyoga baraha bulshada ku tuuri kuteenta iyo waxyaabaha aan saliya raatoon ahayn la wareegay kuwaas oo laakiin bariiskoodu galay sida iyagu hadalka u dhigeen haddaba waxa ay si wada jir u soo duubay fiidiyoga hordhiciisa aragtay kuwaas oo ay sheegayaan dadyoga waxyaabaha aan saliya raatoon lahayn aan wanaagsaneyn la wareegay baraha bulshada kuwaas oo ku hawaabinaya bay dhaheen dadyoga annaga faaniskeyga ama dadyoga annaga nagu xidhan kuwaas oo hadalla been abuur iyo waliba waxyaabo ku tuuri kuteena aan saliya raatoon lahayn la wareegay baraha bulshada iyagana waxaanu leenahay ilaahay ka baqo iska daya waxyaabaha been abuurka ee aad naga sameynaysan kuwaas oo waliba si xun wax u baafinaya iyo waliba qaar kale oo YouTuber oo iyaguna waxyaabaan munaasib ahayn soo bandhiga haddaba wax ay sheegeen in aanay Facebook ay waxyaabaha aan fiicnayn lagu soo qoriyay in aanu ahayn kood saxda balse uu yahay mid lagu mujahabaabinayo dadyoga nagu xiran annaga kuwana waxaan ka codsanayaa haddii aanu deyn karin inuu waxyaabo wanaagsan uu ku soo qoro sida hadalka u dhigeen wala waan fiidiyoga soo wada qaadan balse aan in ka soo qaatay ayaa hadalkooda urdhaca iyo waliba sida uu iskugu biyo shubanaya ayaa ahayd in aan haba yaraatay jirin Facebook-ga iyo waliba kuwa kale wax lagu soo qoriyay in aan iyagu lahayn kooda saxda aan ahayn balse uu yahay waxyaabo lagu mujahabaabinayo dadka kuwaas oo xumaatay iyo cirdi la kala dhex dhigayo haddaba barnaamijkeena daadinayna muumina waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum.